asalaamu calaykum soo dhawaada saaxiibayaal maanta waxaan idin sharxi doonaa film horror iyo drama isugu jira oo soo baxay sannadan 2025 ciwaankiisuna yahay Uncontained. Haddaba daawasho wacan. Filimka ayaa ku bilaabmaya labadan carruur oo ciyaaraya kuwaas oo aan gebi ahaanba ka warqabin wax ka socday bannaanka gurigooda. Zombiyo fara badan ayaa dibadda taagnaa. 6dii sano ee lasoo dhaafay fayraska zombigan ayaa aad ugu faafay dunida. Waxaa cajiib ah in tan iyo markaas ay carruurtan u suurtagashay inay badbaadaan iyagoo keliya filadan ku dhex jiray. xaqiiqatan khataraha ay carruurtan wajahayeen aad ay u weyneed. Maalin maalmaha ka mid ah lamaane ayaa gurigooda hor yimid. Jim oo qorigiisa caaga wata ayaa u baxay. Ninkii ayaa wiilka weydiiyey halka ay waalidkiisu aadeen. Jim wuu ka aamusay oo ninkii oo dhoolacdaynaya ayaa iska tegay. Habeenkaa Jim oo walaashiis yar la jooga ayaa soo xiray dhammaan albaabadaha iyo daaqadaha guriga. Dibadda dhowr zombiyo oo qaylinaya ayaa sugaya fursad ay guriga ku soo galaan. Subaxdii weli way bad qabeen. Jim wuxuu hubiyey inay rasaas ku jirto qorigiisa. Waxaa soo baxday in qorigan uusan ahayn mid caadi ah. Sidii caadadu u ahaydba iyagoo bannaanka ku ciyaaraya ayaa waxa u soo noqday isla gaarigii shalay. Lamaanihii ayaa mar kale carruurta weydiiyey halka ay waalidkooda aadeen. Jim oo been sheegaya ayaa yidhi magaalada ayay adeeg ka doonteen. Laakiin arrintan kama aysan rumaysan oo waxay carruurtu sheegeen inay iyaga la joogi doonaan. Lamaanahan markay arkeen in gurigan ay cunnooyin iyo dawooyin fara badan yaalaan oona talaajadu ay shaqaynayso ayay go'aansan inay in muddo ah halkan sii joogaan. Ninkan oo Jack la dhahayay ayaa bannaanka u baxay si uu gaarigiisa meel ugu soo qariyo. Waxay iyagu u muuqdeen kuwo ka dhuumanaya dad daba socday. Goor dambe habeenkaa Jim wuxuu maqlay lamaanahan oo sheekaysanaya. Waxay u riyaaqaan cuntadan iyo adeegan bilaashka ah. Jim isaga iyo walaashiis waxay galeen qolkoodii halkaas oo ay sirta u fududaysay inay zombiyada ilaa haatan ka badbaadaan. Subaxdii xigtay Jack oo quraacda diyaariyay ayaa u dhaqmaya sida inuu yahay mulkiilaha guriga. Jim ayaa markaas si qariib ah ku wargeliyay inay waxaan sii socon doonin. Habeenkii markii la gaaray Jim waxa u yimid eegiisa kaasoo wax u tilmaamayay kadibna uu fahmay oo walaashiis ayuu ku soo xiray qolkii badbaadada. Dabaqa hoose lamaanuhu ma oga khatartan ku soo wajahneed. Haweenaydii oo dhankii suuliga aaday ayaa bannaanka ku aragtay dhowr zombiyo oo daaqadaha taagnaa. Nalkii ayay demisay iyadoo moodaysa inay zombiyada arki doonin. Laakiin markaas si lama filaan ah albaabkii gadaasheeda ayaa furmay. Jack wuxuu dareemay inay wax qaldan yihiin oo isagoo bastoolad wata ayuu dhankaas soo aaday. Kaliya wuxuu ka war helay saaxiibtiisa oo dhulka jiifta oo uuna dhiig ku yaalo. Tanna waxay ahayd markii ugu dambaysay ee lamaanahan isha la saaro. Subaxdii Jim iyo walaashiis ayaa ciyaartooda sii watay oo waxaad mooddaa inaysan waxba dhicin oo kale. Tani ma aysan ahayn markii ugu horreysay ay carruurtan shaqo ka qabtaan dadka ay fahmi waayaan. Isla waqtigaa nin tama dheer oo safar dheer soo galay ayaa dhankii gurigooda soo aaday. Wuxuu arkay dhowr dabino oo barafka lagu dhex qariyey. Isla markiiba waxaa hortiisa ka soo baxday inan yar. Kor intuusan wax falcelin ah samayn cirbad mudac leh ayaa ku dhacday. Cirbadan suuxiso ayay ahayd. Dabcan Jim ayaa ku dhuftay. Ugu dambeyntii markii daroogada ka baxday Jim ayaa ninkan goor horeba qoriga ku hayay. Su'aal la weydiiyey kadib wuxuu daha ka qaaday in daan lagu magacaabo oona commandos ka tirsanaan jiray. Wuxuu haatan raadinaya xaaskiisa oo uu waayay. Jim ayaa ninkan iska dhaafay. Xaqiiqatan ninkan oo ka duwanaa dadkii hore wuxuu u muuqday mid aan dan ka lahayn cuntooyinkii iyo dawooyinkii guriga yaalay. Dan oo yaabana ayaa markaas inanka weydiiyey halka ay waalidiintiisu aadeen. Markaan Jim been ma uusan sheegin. Wuxuu sheegay in aabbihii uu yahay saynisyahan oona muddo dheer la weysan yahay. Hooyadiisuna waa askariyad ka tirsan shirkad security ka shaqaysa oona dhowaan ayuu filayaa inay soo noqoto. Dan oo yaaban ayaa arkay mashiinka orodka oo guriga koronto siinaya. Muusan filin in filadan ay ku tirsanaato mashiinkan. Isla markiiba zombi ah si tartiib ah daaqada guriga u soo dhawaaday. Isagoo aan ka labeen Dan ayaa bir qabsaday oo zombigii dilay. Markuu soo noqday isagoo uu dhig ku yaalo ayaa Jim uu ku qayliyay maxaad u dishay. Muraadaha gurigan waa kuwo aan xabad u karin. Mana jirto zombi gudaha u soo gudbi karaa. Isagoo sidaas loo canaantayna haddana Dan raaligelin ayuu bixiyey. Wuxuu fuulay mashiinkii orodka oo wuxuu bilaabay inuu guriga koronto siiyo. Habeenkii wuxuu soo idlaaday Dan oo aad u dahlay. Waqtigaa Jim wuxuu goor hore u baxay bannaanka. Subax kasta wuxuu isagu eegaa dabinadii ku xirnaa aaga gurigooda si aysan zombiyada ugu soo gudbin. Zombi ayaa markaas ku dhacay mid ka mid ah dabinadii. Dhan kale Dan markuu qubaysto oo uu quraacday wuxuu go'aansaday inuu aado halkii ay Jim hooyadiisu ka shaqaynaysay. Miiska ayuu ku arkay furo gaari oo markuu garaash galayna wuxuu ogaaday in gaariga reerkan uu ciladaysan yahay. Isla waqtigaa waxay indhihiisu qabteen qol uu u malaynayo inuu bakhaar yahay. Markuu ku dhow yahay inuu galo Jim ayaa joojiyey. Maadaama uu la joogo wax ka badan maalin Jim ayaa ku qancay in Dan uusan dhibaato wadin oo uuna xoolahooda rabin. Sidaas darteed habeenkan ma aysan gelin qolkoodii badbaadada. Si kasta haatee waxaa la yaab lahayd in Jim uu gacantiisa ku katiinadeynayay sariirta. Markuu waagu soo dhawaaday Dan wuxuu ku soo toosay shanqar. Shanqartan waxay ahayd Jim oo samaynayay roondadiisa subaxlaha. Wuxuu isagu dib ugu noqday dabinkii shalay halkaas oo zombigii weli ku xirnaa. Intii uu ka fikirayay wixii uu ku samayn lahaa ayaa Dan uu si lama filaan ah u yimid. Dan wuxuu mooday in zombigan uu yahay Jim hooyadiisa oo wuxuu ku dhawaaday inuu dabanka ka sii daayo. Laakiin Jim oo qori ku qabtay ayaa joojiyey.
daan oo dib ugu noqday villada ayaa furay qolkii bakhaarka ee shalay loo diiday inuu galo. wuxuu gudaha ku arkay busto dhulka yaala iyo gidaaradii oo ay cidiyo qariib ah ka muuqdeen. sida iska cad waxaa meeshan loo isticmaalaa in lagu xiro zombiyada. isla markii wuxuu maqlay guuxa matoor gaari. dad zombiyadan ka soo badbaaday ayaa halkan yimid, laakiin iyagu dhibaato ayay u socdeen. iyagoo qoryo sita ay guriga hareereeyeen. daan oo aan wax u bahsidan ayaa gudaha galay. dhan kale Jim oo kormeerkiisa ka soo laabtay ayaa meel fog ka daabanaya wax socda. walaashiisii ka yareed ayaa dabaq kore taagneed, taasoo isaga u gacno haatinaysay. markay burcadu ku dhow yihiin inay inanta arkaan ayaa daan u qariyey. Jim waa u nafisay. nimankanna markay ka qosteen inay guriga gudaha u galaan ayay iska soo dhaqaaqeen. dhacdan kadib Jim aad buu daan ugu kalsoonaaday oo xitaa hubkiisa ayuu ugu ag tegayay. daan wuxuu dareemay in la gaaray waqtiguu u bixi lahaa, laakiin ma yaqaano siduu carruurtan ugu sheego. saqdii dhex wuxuu ku soo toosay reeda codka xaaskiisa oo u yeeraysaa. subaxdii wuxuu go'aan ku gaaray inuu Jim iyo walaashiis kaxeeyo oona sidoo kale xaaskiisa raadiyo. Jim ayaa ka diiday oo ka baryay inuu la joogo inta ay hooyadooda ka soo noqonayso. waqtigaas sawaxan xoog leh ayaa banaanka soo yeeray. kooxdii tugtaheed ayaa soo noqotay. kaaga darana waxay qabsadeen Jim walaashiisa oo banaanka ku ciyaaraysay. iyadoo ay xaaladdu halkaas marayso ayaa waxaa hal mar labada maqlay dhowr xabadood. laba ka mid ah tuugadii ayaa xabadii haleeshay oo isla markiiba dhulka ay ku dhaceen. daan wuxuu ku guulaystay inuu cunugta soo badbaadiyo. qofka xabadahan soo riday waa Jim hooyadiisa. nasiib daro intay foodaan socotay waxaa daan haleeshay mid ka mid ah xabadihii ay buracdan soo rideen. tabar la'aan ayuu dhulka la dhacay oo waa u miir beelay. xaqiiqatan qofna ma garanay inta saacadood ay ka soo wareegatay kahor intuusan daan dib u soo kicin. wuu la yaabay inuu ka bogsaday xabaddii ku dhacday. wuxuuse arkay isagoo uu xarig ku xiran yahay. dabaqa sare waxaa ugu soo gacan haatinaya Jim iyo qoyskiisa. isagoo weli jah wareersan daan ayaa gudaha galay oo Melanie ayaa ugu dambeyntii wax walba u sharxday. waxay u sheegtay in dadka caadiga marka uu fayraska zombigan haleelo ay maskaxdoodu shaqada joojiso oo uuna aqliga ka tago. laakiin ilaa amarkiis waxaa jiray dad kale oo markuu cudurkan haleelo ay maskaxdoodu si buuxda u shaqaynayso oona leh isla awooddii zombiyada, sidoo kalena saacad kadib bogsada. dadka noocan ah marka uu dhaawac daran soo gaaro waxay muddo yar gudaheed galaan xaalad xanaaq iyo waali ah oo aan la xakamayn karin, taasoo loo yaqaano frenzy. xaaladani oo ay ka duwan tahay tan zombiyada caadiga. markuu warkan maqlay daan ayaa is weydiiyey inuu isagoo dadkaa ka mid yahay. Melanie ayaa u xaqiijisay inuu dadkaa ka mid yahay, sababtoo ah ma uusan ka badbaadi lahayn dhaawacii soo gaaray oo taa badalkeeda uu u dhiman lahaa ama wuxuu noqon lahaa zombi aan caqli lahayn. markii axbadda ku dhacday wuxuu isagoo maray xaaladii carrada amwaalida ee koobneed oo maalintii xigtayna wuxuu soo toosay isagoo aysan waxba soo gaarin. dabadeed Melanie waxay daha ka qaaday war kale oo naxdin lahaa. Jim oo wiilkeed ah wuxuu isagoo laftiisa ka mid yahay dadkan gaarka ah ee daan oo kale. waxaa soo baxday in lamaanihii horey Jim ugu yimid uu isagu dilay kadib markii uu galay xaaladan waalida ee aan la xakamayn karin. taasina waxay noo sharxaysaa sababta uu Jim gacantiisa u katiinadeeyo habeen walba. isagoo yaaban daan ayaa Jim weydiiyey inay jirto waddo lagu ogaan karo marka uu qofka xaaladaas carrada ah gali rabo. Melanie waxay u sharaxday in eega Jim la socda uu yahay xayawaan loo tababaray inuu ogaado marka uu Jim xaaladaas gali rabo. waqtigaa daan wuxuu dib u xusutay qolkii ay xagtinta faraha badan ku yaaleen. qolkaas wuxuu ahaa mid uu Jim isku soo xiro marka uu xaaladaas waalid ah galo. isla markiiba waxay maqleen dhabaqa gawaari soo socotay. Melanie oo gabadheeda wadata ayaa hortaagneed kooxo qoryo sitay. waxay u muuqataa inay si fiican u garanayso ninkan garka cad ee kooxda hogaaminaya. waxaa soo baxday in ninkan ay nintiisu la carartay nin xun oo iyada ayuu haatan raadinaya. Melanie ayaa u xaqiijisay inaysan arag, oo haddii ay aragtana way la soo wadaagi doontaa isaga. odaygii iyo kooxdiisu ayaa sidaas meesha uga dhaqaaqay. habeenka daan wuxuu si caadi ah haweenadan u weydiiyey sababta ay filadan uga dhisteen goobtan cidlada ah. Melanie waxay sharaxday in shirkadda security-ga ay u shaqayso ay muddo dheerba filaysay inuu fayraskan zombiga dilaaco. sidaas darteed meelo fogfog oo sidan oo kale ah ay ka dhiseen guryo qarsoodi ah oo walxa adag lagu qalabeeyey. guryahan ayaa sidoo kale iskood koronto u dhalinaya si ay iskugu filnaadaan. daan markuu tani maqlay caloolxumo ayuu dareemay oo wuxuu Melanie u sheegay inay ahayd inay bulshada la wadaagto, taasoo dad badan badbaadin kartay. laakiin Melanie keliya madaxa ayay ruuxday oo waxay daha ka qaaday inay dhibaato kale haystay, taasoo ahayd in Jim iyo walaashiisu ay ku dhashteen cudur wadnaha asiibay. Jim aabihiis wuxuu ahaa biologiste, wuxuuna ka mid ahaa culimmadii ugu horreysay ee shaaca ka qaaday jiritaanka fayraskan zombiga. aabuhu markuu ogaaday in wiilkiisa Jim uusan 3 sano dhaafi doonin ayuu qaatay go'aan quus lahaa. wuxuu Jim ku daray fayraskii zombiga oo wiilkan ayaa si qariib ah u noqday dadka naadirka ee cudurkan ka badbaada markuu haleelo. nasiib daro mar uu Jim galay xaaladii carrada ama waalida ahayd ayaa uu aabihiis qaniinay. aabuhu waa uu badbaadi waayey oo zombi caadi ah ayuu noqday. Melanie oo aan doorasho kala haysan ayaa ku qasbanaatay inay ninkeeda disho. kadib markuu maqlay sheekadan murugada leh daan uu iscelin waayey, laakiin wuxuu u riyaaqay dhiirnaanta iyo go'aanka Melanie. waxay iyadu had iyo jeer ahayd hooyo daryeelaysa carruurteeda yaryar. muddo kadib Melanie iyo qoyskeedu waxay bilaabeen inay daan ku kalsoonaadaan oo isagana xooggiisa ayuu ku caawinayay. maalmaha ka mid ah iyadoo aan la filayn eegii ayaa 2 jeer ciyay. Jim wuxuu isla markiiba ogaaday inuu xaaladii carrada ahayd gali rabo. qolkii ayaa kor looga xiray oo qeyle iyo xanuun badan ayaa gudaha ka soo baxaya. Melanie waxba kama qaban karto, kaliya waa inay sugtaa intuu caadi ka noqonayo.
iyadoo aysan cidna filayn cunugtii yareed oo bannaanka ku ciyaaraysa ayaa si lama filaan ah dhulka ku dhacday. Malene waxay garwaaqsatay inuu wadna xanuunkii qabtay, dawooyinkiina waa ay ka dhammaadeen, mana jirin wax ay samayn karaan. Dan ayaa soo jeeday inay raacaan isla wadadii Jim lagu badbaadiyey oo ayna fayraska duraan. Laakiin Melanie ayaa si adag u diiday oo sheegtay in kiiska Jim uu ahaa mid mucjiso ah oo isaga laftiisa xitaa aad ay ugu dhibtooday inuu sii noolaado. Ugu dambeyntii wuxuu ku khasbanaaday inay daawadaan cunugtii yareed oo hortooda ku nafbaxaysa. Kadib markuu Jim ka soo baxay xaaladii carada ahayd, isaga iyo qoyskiisu waxay macsalaamayeen cunugtii yareed oo naf baxday. Dan wuxuu ogaa in la gaaray waqtigii uu bixi lahaa. Inkastoo Jim iyo Melanie ay ka codsadeen inuu la joogo, haddana wuxuu ku khasbanaaday inuu galo safarkii uu xaaskiisa ku raadinayay. Guriga oo haatan ay laba qofood ku soo hareen ayaa cidlo laga dareemayay. Meel aan sidaa filada uga fogeen odaygii garka cada ayaa arkay gaarigii uu Jack lahaa oo meel lagu qariyay. Lamaanihii Jim u yimid bilowga filimka waxay ahaayeen dadkii uu odaygan raadinayay. Wuxuu haatan baabuurkooda ka helay meel u dhow guriga Melanie. Odaygan ayaa go'aan ku gaaray inuu dadkaas guriga ka raadiyo. Dhan kale Dan oo barafka dhex hurda ayaa si lama filaan ah ku soo toosay shanqartii raggan. Markuu sawaxanku yaraada ayuu soo daba kacay. Wuxuu arkay inay u socdeen guriga Melanie. Qoyskana ay u baqay oo wuu soo noqday. Wuxuu meel fog ka arkay gurigii oo ay maleeshiyaadkan ku sii qulqulayaan. Oday garcade ayaa Melanie ku cadaadinay inay sheegto halka ay inantiisu ku sugan tahay. Wuxuu guriga ka dhex helay shay ay inantiisu lahayd. Melanie oo garan lahaa qaab ay isku difaacdo ayaa iska aamustay. Dhan kale Dan oo si tartiib ah u soo dhaafay waardiyaasha ayaa ku guulaystay inuu gudaha galo. Wuxuu arkay Jim oo jikada ku dhuumanaya. Kadib markuu ogaaday tirada cadowga ee gudaha ku jira, Dan ayaa hubkiisa la soo baxay. Burcadii ayuu mid mid qoorta uga jaray. Nasiib daro markuu hoolka gaaray dhowr qori ayaa hal mar lagu wada qabtay. Laakiin talaabadii xigtay ee uu Dan ku dhaqaaqay qof walba ay ka yaabisay. Mindi ayuu qoorta isaga gooyay. Dadkii ku xiranaa waa ay la yaabeen, laakiin Melanie way fahantay ujeedkiisa. Si tartiib ah ay Jim u kaxaysay oo hoolka ay ka baxeen. Wax yar kadib Dan wuxuu si buuxda u galay xaaladii carada amwaalida ahayd. Sidii zombiyada oo kale ayuu oday garcad iyo raggiisa u wada laayay. Markan Melanie ma aysan xirxirin ninkan, oo kaliya wiilkeeda ay la soo carartay. Guuxa carada ee Dan wuxuu soo jiitay zombiyo fara badan oo halkan ka agdhawaa. Subaxii xigay Dan wuxuu soo tusay gurigii oo zombiyadu gebi ahaanba kharaabiyeen. Miiska dushiisa waxaa saarneed warqad ay Melanie u dhaaftay. Waxay sheegtay in iyada iyo wiilkeeda Jim ay u dhaqaaqeen dhanka waqooyi. Haddii uu eeba idmana waxaa laga yaabaa inay mar kale kulmaan. Isagoo dhoola cadeynaya, Dan ayaa soo qaatay boombalihii uu Jim jeclaa. Boorsidiisa ayuu ku ritay oo safarkiisa ayuu sii watay isagoo u dhaqaaqay dhanka waqooyi.